waxaan arkaysaa qoyskii oo daada rabo iska sheeganaya ayadoo daada qofka xataa uusan garanaynin oo waqtiga uu dhashay xataa uusan ogeyn marka waa xog loo kaydinayo qofka markuu uu dhashay iyo inta uu jiro markaas oo si toos ah ula socon karo dawladda waa ku amaanaya waana ku mahadsan tahay in la diyaariyo xog laga diyaariyo gobolka Banaadir iyo dadka ku nool waxa kale oo la ogaan karaa in dadka ku nool gobolka ay canshuur bixiyaasha waxa la ogaan karaa in la ogaado. bismillahir rahmanir rahim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. anigoo ah gudoomiyaha xisbiga muwaadiniinta Soomaaliyeed Dr. Salaad Muuse Cali waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo oo soo dhaweeyo baaqii oo soo saaray gobolka Banaadir kaas oo ahaa liiska dad dhigista xeerkaas liiska dad dhigista ma ahan mid hadda soo baxay waxaa la soo saaray 1953 dawladihii Soomaaliya soo marayna kulli diiwaangelintaas waa soo sameeyeen dawladii ugu horeysay Soomaaliya ee dawladii madaxweynaha uu ka ahaa aadan cabdulla ismaan iyo wixii ka dambeeyay intiisa dawladda naga burburin dawladii kacaanka intaba waa isticmaalaysay liiska dad dhigista familiyada taasoo maaragtay wax lagu ogaanayo familiyada horta waxay faa'iido weyn u leedahay qoyska waxaa lagu ogaanayaa qoyska intay ka kooban yihiin qofka ku soo kordho oo dhasho qofka joogo waalidiinta ilmaha xaaska intaas oo dhan waa lagu ogaanayaa marka waxaa la ogaanayaa qofka marka meesha ku soo jeedo waqtiga uu dhashay meesha uu ku dhashay waxay noqonaysaa in si fudud lagu helo xogtiisa hadduu dhintana laga saaro maadaama la ogaanayo inuu dhintay waxaa lagu ogaan karaa marka Soomaaliya maanta muhiim ay u tahay in la ogaado maadaama wadanka uu qaralaafo badan oo ka jiro dad badan oo maxaan ku yiraahdaa nabadda ku soo horjeedana ay ku nool yihiin marka in la ogaado qofkii dambi gala meesha ku soo jeedo iyo meesha ku dhashay familiyadiisa in la helo oo tixraac loo sameeyo sida waalidiintiisa walaalihiisa meesha xogtiisa taalo iyo meesha ku dhashay meesha ku soo jeedo in si sahlan loo helo horta dawladda waa ku amaanaya waana ku mahadsan tahay in la diyaariyo xog laga diyaariyo gobolka Banaadir iyo dadka ku nool waxa kale oo la ogaan karaa in dadka ku nool gobolka ay canshuur bixiyaasha waxa la ogaan karaa in la ogaado iyo in waxa ay u baahan yihiin markaas loo qabto maadaama iskuulada hadda lacag la'aan badan la sameeyay isbitaalana lagu diri rabo oo lacag la'aan in qofka canshuurta bixiyo ee gobolka ku dhashay ee ku nool in la ogaado sidaasna loo fududaato in maadaama canshuurta laga qaado in dib loogu celiyo isbitaalada lacag la'aan iyo iskuulaadka loo badiyo lacag la'aan looga dhigo si ay bulshada Soomaaliyeed dawladda xaq ay ku leeyihiin loo tuso xaq dawladda ay ku leedahay ayagana ay ogaadaan in canshuurta iska bixiyaan si canshuurta ay dib loogu celiyo horta waa aad ay u fiican tahay maxaa yeelay hadda waqti badan lama sameeynin familiyo ambaliiska qoyska waxaan arkaysaa qoyskii oo daada rabo iska sheeganaya ayadoo daada qofka xataa uusan garanaynin oo waqtiga uu dhashay xataa uusan ogeyn marka waa xog loo kaydinayo qofka markuu uu dhashay iyo inta uu jiro markaas oo si toos ah ula socon karo marka waxa dareemaysaa hadda dadka qaar aan la soconin ba hadii tira waqtiga dhalatay maaragtay ayuu ku sheegi karo marka hadii loo xanaaneeyo xogtaas waa wax aad u weyn laguna socdana qoyska iyo meesha ay degan yihiin waa wax fiican dokumentiga oo mar walba qaadanayna oo la ogaado dokumentiga oo haysto marka waxa la ogaanayaa xataa waxay kaalin ka qaadan kartaa xagga nabadda maxaa yeelay qofka xilliga dhashay xilliga jiro qoysku ku tirsan yahay iyo qoysku meesha ku dhashay inta ay la ogaanayaa marka waxa looga badbaadiyaa rabshadaha badan ee hadda dalkeena ka taagan marka waa aad u amaanaya dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir ba inay maanta liiskii qoyska ay soo saaraan liiskii dad dhigista qoyska follow family in maanta ay soo kordhiso dalka hore u soconaya waana la shaqeynaya waxaa la rabaa dalka inuu waqtigii gaabka uu galay dawladda burburtay intii dawlad la'aanta yareed ku jirnay in laga soo laabto lagana daba tago dawladihii aan wada soconay waqtiga u saamaxay in ay naga hormaraan marka waxaan shacabka Soomaaliyeed ayaguna aan dhihi lahaa in la taageero wax walba oo dawladnimada lu kore maxaa yeelay
dowladnimada ayaa dadka deeqda dadku ma deeqaan koox iyo qabyaalad iyo qabiil waxa ma deeqaan Soomaalinimada ka yarnaya la istaagin dadku Soomaalinimo ayaa deeqda marka waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay hawshaasi ay dowladda gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka ay soo rogto waa sax xasan horta dowladdu hadda baaqay soo saartay oo akhriyay afyeenka gobolka Banaadir hadda xogta loo yaana waxa waaye lacag ma aha inay yimaadaan dadka isdiiwaan geliyaan inaysan lacag ahayn oo la diiwaan gelinayo inta waqtiga horena dadka si bilaash ah ama lacag la'aan ah lagu diiwaan gelinayo gobolka soo saareen waana ku mahadsan yihiin in ay maaragtay dadka danyarta iyo qofkii dhexaadka ah iyo qofka daweyna intaba in hadda si siman looga dhaafo lacagta dawladdu si maaragtay si bilaash ugu samayso muwaadiniinta Soomaaliyeed waana wax fiican xasan dadka hadda si toos ah ayaa loogu sheegay inay soo diiwaan geliyaan inay si toos ah meelaha laga diiwaan gelinayo goobaha loogu talagalay in laga diiwaan geliyo shacabka Soomaaliyeed in ay goobahaas yimaadeen inta hadda qoyska ay ka kooban yihiin inay tagaan diiwaan geliyaan wixii markaas ku soo kordha ana ay gudbiyaan ay geeyaan ay maaragtay si asagana loogu daro qoyskaas oo kamid yahay oo ku soo kordhay cunugaas xasan